marka jamaacada khaarijinta afar bilood bay baxayaan afartan bay baxayaan muddada ha eegine muhiimadda u baxayaan eeg wallahi summa wallah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culimada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooda muslimka dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajida soo galiyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inniku dadkii wanaagsanaa ee masaajida camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya nin odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa kaligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saaw qarqaraya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waana qanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigoor reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan u malaynba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiisa qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartiisa ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa biyana kuma sidno waxa biyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maana ba arkay buu la yaab ay ku noqotay waqti khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraadana anako jamaacad waxaan ay martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyarada masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftaydi maalkayaan ku soo baxnay ilaahay marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buuri waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag wad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan ina jamaacad u tagto soo salaantay bas intaas aan ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii uu jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo sameey salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo soo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ay linear iyo muuzir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan oday hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la in yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu ali ogow miya la dagaalama buu ka yiri la sideed ay ka noqonayaan markaa buu nabigu ali dhageysa buu ka yiri mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa asas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa haddii dadku iyagoon lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay yiraahdeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya
salaadii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timidoo ilaahay waa ka manna qaatay وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وفي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دندج أعماش الجنة الله وعين تضمن مع الموضوع عبادة استي صدابا للرجل إلهي جنين وكو قليل لأن خاتمات بإله هو حسن الخاتمة وشيء غالية